توسا ربي أسجود بريا ربي أسجود ركوعا ربي أسجود بريا ربي أركوع سجودا oo dib u soo celino majdigii iyo sharaftidii uu lahaa islaamku oo qofka muslimkii uu noqdo qof laga haybaysto oo cadaalad ku hoos nool oo dunida xaq gaadhsiiya siday u dhacaysaa haddaba taas mabda'ii wuu yaallaa kitaabka iyo sunnahaanu ku cadyi laakiin sidaan u gaadhnaa sidee baan mabda'a kan intaynu rafcinno maamulka u gaadhsiinaa madalladan saree dadku uu hoos harsanaya dawladnimo sidee baynu uga dhignaa mid islaamiya see baa dadku islaam ku noqon karaa dadku waa muslimiina see buu islaam u dabiqi karaa su-aashaa jawaabteedu way tarafyo badantay cidbana sibay ula muuqatay qofba sibay ula muuqatay waana mas'alo aynu odhan karno ilaa xaddin maa waa mas'ala ijtihaadiya haddaynu rabno inaynu wax qiimayno ijtihaad tiro baday aqwaal ilculamaa badanna waa haysaan amase waa akhriday ninbana mid buu iskaga yaro ta'asuro u dhankiisa isaga janjeedha laakiin waxa fiican in markii tajaaribta camaligaa la geliyey ee waxa kan practicality loo isticmaalay adigoo laakiin aan camimaynin xaadisa walba ku eegaya duruuftay la noolayd iyo zamankay noolayd iyo daqdigii lagu hayay bulshada dhaqamadeedii iyo say xarakadan u taageeraysa iyo say isku ahaayeen dawladda meesha ka jirta iyo xooggeeda faragelinta reer galbeed iyo siday ku ahayd iyo nimanka reer galbeed u taliya caalamul islaamiga iyo siday u arkeen ama meeshan u qiimeynayeen ama waxa ka dhacaya ay ugu xisaabtamayeen adigoo waxaasoo dhan ku qiimaynaya waa inaad qiimaysaa tajribada tani waxay soo saartay kullu haadihi tajaarib waxbay tareen haddii la tilmaamo ceebna mid ceeb loo waayayaa ma jirto